الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الجسور دوادا سوى من سومالي تي في أو أهلا بهذا هنوكله الدعوتان. داود التضبط كان برنامج كنا وحيابان وكسو قادن دونا وحاكم نقون دونا كي قدام بي تضبط كأنه كسو قدامنا كده عودن كفيلان ويجو حيس جار له يوحنا كسو قادن دونا حفلة آدو بلارن وأي سوي مدين dadweynaha Soomaaliyeed qaar kamid ah ee ku dhaqan wadanka Sweden caasimadiisa Stockholm laguna soo dhaweynay wasiirada horumarinta deegaanka iyo arrimaha bulshada Dr. Marian Qaasin oo iyadu dhawaan soo gaartay wadanka Sweden ayaanu ku soo qaadan doonaa guud ahaan toddobaadkan barnaamijkeena daawadayaal balse marka hore wararkii ugu dambeeyay Cabdi Muuse Maxamuud. Illaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal ku soo dhawaada warkeena caawa qodobada caawa warkeena ugu waaweyna waxa kamid ah Heidi Hautala wasiirada horumarinta dalkan Finland oo fadeexad ay la soo diristay macalinka sanadka oo dalkan Finland lagu caleema saaray iyo sidoo kale cilmu nafsi yaqaan ku takhasusay dhinaca xusuusta iyo maskaxda oo ku talinaya in baaritaan lagu sameeyo dadka da'doodu 65 sano ka weyn tahay ee ka tirsan golayaasha deegaanka ama degmooyinka ee dalkan Finland. Haatanna ku soo dhawaada warkeeni oo faahfaahsan. Heidi Hautala wasiirada horumarinta ee dalkan Finland ayaa waxa maalmihii u dambeeyay la soo dirsay fadeexad dhinaca suuqa madow ah. wasiirada ayaa waxa lagu helay dambi ah in ay si suuq madow ah dayactir ugu samaysatay albaabka gurigeeda. albaabkaas oo qofkii u dayactiray ay lacag gacanta ka siisay iyadoo nidaamka mushaaraadka lagu bixiyo ee dalkan Finland iyo canshuur midnaba aan soo marsin. sidoo kale wasiirada waxaa lagu haystaa in qof nadaafada ka shaqeeya oo haweeney ah ay gurigeeda u nadiifisay iyadoo lacagtana gacanta ka siisay. wasiirada ayaa waxaa dad badani oo siyaasiyiin ah kula taliyeen inay xilka isaga degto. laakiin dadka ay xukuumadda ama wasiirada wada yihiin ee dalkan Finland ayaa waxa ay qabaan in go'aanka kama dambaysta ah ee ay xilka uga degayso ama ay ku sii wadanayso ay u taalo xisbiga ay iyadu ka tirsan tahay ee cagaarka. Heidi Hautala ayaa waxaa la filayaa in maalmahan soo socda ay go'aan ka qaadato iyaduna mansabka ama masiirka ay ka hayso xukuumadda dalkan Finland. Heidi Hautala waxaa kaloo xusid mudan inay xubin ka ahayd laakiin ay hadda isaga baxday baarlamaanka Finland guddi uu leeyahay oo qaabilsan ka hortagga suuqa madow iyo waxyaabaha kale ee la halmaala. macalinka sanadka ayaa waxaa lagu caleema saaray magaalada Fanta ee dalkan Finland. Kai Ari Lundell macalin lagu magacaabo oo muddo ka badan 30 sanadood ka soo shaqeynayay ama wax ka dhigayay dugsiyada hoose dhexe ee dalkan Finland ayaa waxaa loo aqoonsaday sanadkan inuu noqdo macalinka sanadka. iskaashato ama urur ay leeyihiin macallimiinta fasalada ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in sanadkan ay siiyaan aqoonsiga ah macalinka sanadka Kai Ari Lundell. Kai Ari Lundell waxa uu hadda macalinka yahay dugsiga hoose dhexe ee Bahkinarinne oo magaalada Fanta. cilmu nafsi yaqaan ku takhasusay dhinaca xusuusta iyo maskaxda oo lagu magacaabo Matti Vanhanen ayaa waxa uu ku talinayaa in baaritaan dhinaca maskaxda ah iyo weliba xusuusta lagu sameeyo dadka da'doodu ka sarreyso 65 sano ee xubnaha ka ah golayaasha deegaanka ee dalkan Finland. cilmu nafsi yaqaanku waxa uu qabaa in maadaama ay ku soo bateen dadka da'doodu ay 60 kor u dhaafayso golayaasha deegaanka ee dalkan Finland in lagu sameeyo baaritaan xitaa la dhigi karo in waa mid qasab ah. cilmu nafsi yaqaanku waxa uu ku talinayaa in haddii baaritaankaas la sameeyo looga hortegi karo in ay shaqadooda gudan waayaan dadka qaar da'doodu ay kor u sii dhaafayso 65 sano. xusuusta cudurrada asiiba ayaa waxaa ka mid ah cudur dadku aanay la xusuusan karayn ama aanay la qabsan karayn shaqooyinka ay qabtaan, waxyaabaha waajibaadka ee saaran iyo shaqooyinka iyaga u yaala oo ay tahay in ay fuliyaan ama ay qabtaan. warkeennii caawana daawadayaal waa naga intaas. intaaynu ku dhaafno wararkii ugu dambeeyay oo inoo akhrinaya Cabdi Muuse Maxamuud. daawadayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo lagu soo dhaweynayay wasiirada horumarinta deegaanka iyo arrimaha bulshada Dr. Marian Qaasin oo iyadu dhawaan soo gaartay wadanka Sweden caasimadiisa Stockholm. daawadayaal barnaamijkaasi waxa uu dhacay sida tan.
dhawaada gacmo furan. يا أصحابي وأنا سقنايا أمانة وجدين تفرنا مانتا ليدو مالك المفروض نعم أصحابي سؤال رمينا نوديو أكشن عليك ما هو مالك الجماعة والمكان تمال سؤال سويدينا سؤال رمينا نوديو حتى هاي بدا وين وجدين بدا وين قف والبنك وأركم حبوا فكرت براو حبوا ورنيو أنا بدا مكان حتى البار بس بيجا فكرة وقتها أبو وطن كاس هواي ويانا هواي وطن أنا وضد قريولة يقول حسين إسماعيل حتى الكاس ما أنا واحد كلمة فكرة ورادنا محبوا فكرت يا أخي صاحبه أنا قام والله وين أنا بيوم مع أهلي أنا واحد كان جميع خوتنا من ملايا هذا محبوا فكرت أنا أكو فكرة إلهي أبوردي يا خير كذا معي وخلي على العالم يا نوجد بونك أفكار أيه عندها هي أنا بدان إن دحي قاس هذا سعره بوفيس يقول بدان كهياس كاولا يتبقى لكن أنا حلا بدان وين قلاش المحيا اللي بلي شيء لا شيء إلا هذا ما عنده إلا هذا سويدنا سوى أشياء بدان قلاش إلا كذا أصحابنا نيجي شيء بدان قلاش الوحيد كل يوم يا بيسي بدان قلاش الوحيد العقل يدرب له صوب هنا تلنا يجري ويجري على قديان لوك بلو قولوا توسينا فروج جيعان ولا فيرينا يا عمل هذيك شيء ما شو تقولته ورنيو هرتو حسنا والله يا بنا وحسنا ما جرى بد قداش رميا ما يتقان عبتيو أنا بيني يعني بين خلاه صاحبه سيكو بحنا هذا خلاص وقت كفو فرصة كفو مسكعك مجلته أنا أرتو أول ما أسمع أنا يعني هذا أسمع أنا كل يوم مدعجينا كذا مدوا أولي على كذا أسمع أنا كل يوم بس بدهم ملاهي لكن أنا قشة سويت جستي قشية حق تقلع بس سويت جستي أنا وحاي برنا هذيك من هذيك باديو تجميل هذيك خير الله سي حوا سيجوا مركب حربها إن أنت أطلعوا ده حول بقول له إن ده حولها كان هذيك الوقت بختنا هنا مقالة الجوج سادوي مقالة ما كان أنا حربها هنا قطو كيف بعد ما تسعك تبراكوا وراني كان عاد معه والله صاحبه أنا والله wax asmay ma aqaani wallahi meel lacag ka keeno in ma garanay kaalkii adeerka aaw 10 boosaysan jir adeerkii saaxiibo boosaskiisa waa ogtahay ma qaadi karin hal xam isiida yuruba u soconaa saaxiib u dhana saaxiib maanta kaas gaajaysananayo u soconaa lacagtiisa hal boos kala tuur hal boos maxay tahay dhib miyaas saaxiibo waa ma sintaano adi wallahi bilaa waa ila tirnay saaxiib aad ma sintay aniga wixii wada bari banaanka abu ana aada مريوليدا دن ما aragtay babaay midana waxa soo gadaan dhan ma aragtay akfiiqa u fadhiya kushina lagu darabo kuma bas way waa wixii ay qorsheysay aniga nahaaba igu walwaleen dahabkii arooska isku aruurina waa gabaa bismillah na bal suuq inta socda ha isku joorayga ninka ugu joogo ana maxaa ka gal shaqada ma aha hadda lagu aroosay todobada xigta ma ka bixin magicii waxa اوكي وانا ما تهوي انا افكي واسك حرتي صاحب والله ما برك بعد العاص وبعين انك اسك انت صاحبت انا معه طلع ورانت السوق موالد ذيك هذا الشيء ما قبل يسوي الويديا والله صحوا هذا الشيء انت ده كسران ما بعد كل شيء اسكاب حتى واحد ما هستا ويكون معنا قطع سوق قرانه ما بعد marka waxa soo darno iyada waxa lacagta ma fahamta adirno hada marka xaga tagna gaba ka bixin inta lacag ma bala wadiyo ma marka hada waa kaas ma santiin euro marka tagay in guda لو جبال روايا ولي ترى ما يوم تطلع لك سوق هديك دوا اصحابي هذا بلنت القفر ميل واحد كان ويا انا ما بلنت انا اصلا انا صومالي انا بلنت انا كو اظن باشا وانا واحد انا بلنت ماني لكن هذا كفت مع يوروب امريكا انا صار باشا مفروض marka ballanteen waxay tahay bishan markay dhamaato waxaad bilaaday sana fartaan loo ballan ninkii ma waa laga wada tagaa anoo lacagteedu ay diyaar waxba waan ku kala tagaynaa meeshaas bishan loo ballan ballan yaa ballan way laakiin
مغنو يا والله ما كنت والله اللي قالنا إني كان قاعد ما ماني وجدي لكن حد الشيء حقيقة وحاهوا إنه لا نجعله ما على إنه إلهي تعالى جروب أمريكا ما تكتب أنا في إن أنا أقوليكم يكذا واحد يا واحد كمية هذا تمرنا مرة حد يتام بقولك بقولك وفرح سينا بلانتو في سن وكان هنيك رجع وايس كان هذا وايس كان هاي هذه نيك حتى لو صوت عيالك واكسي أنا عارفة حين قر أيوة سوقها إنه بوش أنا منك هسمعك وركيز إسكتاف وحرمة أنا حمر ما فهمت أو قوة يا أنا سو بيلي سيد أصلا بعد تحكي بعد لما لا هاي حتى وحيس بعد وبحنا صافي كجلينا محل وطلع يا ندعينا وني ورت سوق دعاء حتى ولا كان ليه ماشي ورت علي مالك عد waxa ka dhashtaniyo cidda magaalada ayaga haysto ma ducadeeda markuu xaba akhbar waayo marka ana ducayna لا اله الا الله وني وفينا انا قاعد ادوق هو حول ducada ma ahane ani ma ogta abka ab awooka awooto ka awooto waliya ka dhalay ila ana keen meel ka ducayna ma kacdo ducada marka ana ducayna saaxib sug أنا دعينا أنا جا أوجي وحلا متانا مسوين صوت الموتى أولياء دن عدين تصنع كاره هيصنع أنا دن عروتي هاد كوسو صح تبرت أولياء كار كاسا لا هذا أستمرك أنا دعي صاحبي الله سمع ها قالوا دراسة كل جيل مرة لأنك هذا مرة نمري كذا مسكعرنا ماشي أنا فيني أدوك ماشي هو سكتوا سومالي الله ماشي وعند سبلاو بقول دوتا أدوك ماشي هو رسول الله marka isaga problem ma horta ani ila hadda ni soo waday laakiin ma fiicna waa daashan la murta inta dii laga baxo habaa maqfuur inta meel u baxo maaqan marka cid loo gaaminaya iska rabaa inta laga reebaa وربط كل سؤال إلها يا ديارة رع انا ليه قال مين يعني ما بو مسلا لا إله إلا ورتدم بيا دينك ور أنا ديارة راعي ولي بالديارة هو 10 سنة متى اسمعي جات كسوقات مارك لا قال قاعد المتوبين هل كمطور رابط اسمع ترى رجل ما ابي انا رجل مختار مركب ديارة مرة عينه دين جداي قلت ديارة هذا قالنا استوتوسيا اسجفا اسجلعيا ما انا هيك اسكراف يا فراسة تجيبنا سين والله استوسيا ما هو هذا قال لي تجيك الأذن هذا كرسي ما نوجد جورم تسع حوضة اسجلعي بقول بس كجف ذيك أنا كراسته وبيجي المهن Okay. Ahlan wa sahlan and good morning, ladies and gentlemen. This is your pilot Yasmin speaking. Welcome on board to flight 507 departing to Tripoli, Libya. Today we'll be flying over some interesting places, such as Sahara. Now, fasten your seatbelts, and on behalf of my crew and the entire airline, we would like to wish you all a pleasant flight. واحكي معها وحاول براسة اللي هذا يسكت في دوسة. Sir, what would you like to drink? هاي باسبورك عند الوست ها؟ قولي كان ها. Sir, no, I think you misunderstood me. I said we would like to drink. Drink, you know. اوكي. ما باسبورك من عندي. هذا المهم. وإذن جدا ما فهمت مركا أنا إذن دمنت المهم. نفع مركا باسبورك اللي سكعشتا. والله ده قدر نيجي تورنا والله باسبورك ده السلام. هاي مركا حتى أنا عندي مرتقالة يعني ما فهمت. لكن أكتر أنا وحيد تري لما أنا خفكين ما فهمت. هاي أنا حاسس بمعامل واحد حتى البلد. مركا أنا هذا بدي كوري أنت عارف راح أنا مركا أنا واحد نيدل بايو مركا واحد تيل عبتان واحد البلد ديك. صحيح. حرقوا يعني وحبها أنا هاي مرق أو ماركينو مثلا فوق مرق عليه you know he want this مرق you know yeah لا فعل It's a sophisticated airline. We don't serve that. I'm sorry. ما أنا أقول أصلاً وأنا ما كان معي رأنا لما البيع السكان
هاي محمد حد يدرسني أنا قاعد لي إذا ما والله على جيل and this one she want this you know this camel in the corner she needs عانو صوصة We have cow though. Is that okay? Cow? Move, you know, cow. just move okay. I'll be right back. برا ملوكا سوكا شيك بلا وحا صدق ولا درباي ولا تصلو درسل حتى كنتو صار عندي سكمرة لعب. أنا قال لي كلا دوا كبح مجد بيعنا صعب أنا كنت حاسة إنه أنا مرتقبة. إذا بسمعتها أنا كر إيهاس بابو كسوامنا. أنا كنت بزعل واحد من عدم لا إله إلا الله وروح أنا عند ميامي نسيت مانيو دي أنا الجوع مايتي مخالف مش ما صاحب أنا سومالي حسيت كنت أنا بعشر كم تجمع بسم الله هذا ولا تقربها مركا هاي خمر جنوم الإسكتاف ما تقدر إسجلها إنكتوب ولا بلوكا حجاب بعشر معك بيكون تجلسه ديارته حاجة تيمة أحب تجلس على تيمة ما بحكي ما أنا أقول كلام وسمعنا بس لا بقى لقيت تجيب بعشر هو اليوم ما هو قصة صعبة من هذا سيل علي هذا ماشي قالت تختلي قالت يعني تعمل سيل علي xeebta horteeda ay fadhiyaan waxay sugayaan doontii ay ku bixi lahaan Yurub ku aadi lahaayeen وصلنا من ودن لا اله الا الله محمد ان شاء الله كان بسم الله الرحمن الرحيم هو انا مجي جدا وصل الله يا ابو مره يا بعدين الله يرحمك حسن يا ولي طب وارجع حبه كل حاجه يسجل الموتى قلت ولي مو قلب وحافيرس وبطب كحسن صحوا والله بالله طبعا يلا يا سوداء انت من وين؟ يا عم انت شو اسمك؟ صومالي بالله صومالي انت تتكلم عربي ولا ايه؟ عربي انا اوكي تتكلم عربي مدر صومالي انت من وين؟ الف لك الربع الفوز لنا الف لك يا عمو ايه ده مش عربي انت بتقرا قران ولا بتتكلم عربي يا عم؟ الف احمد باء وسكاله عربي جيم وسكاله انت بتتكلمين ايه؟ ايش هذا البنت؟ ما يكلح ولا يكلح مريض شنو وين وهاي ناف هي تعبانه؟ تعبانه معاها كليتين؟ ما في كلي وحبكم يا مان وهذا نصبح صدران لو صبح كلين ما له يلا هنطلع كليتين انت بتقد فلوس 500 اوكي؟ ماشي ودينا مش حرام يلا اركبوا السفينه اركبوا السفينه يا احمد فين اركبوا السفينه ورانيو gabadhii way xanuunsantahay gabadha wallahi bilaad la soo fiiro way xanuunsantahay maskiinta gabadhii soo noqotay حاول لو كسي درتي له لا اله وحي عبدو كان كان biyaha cusbada badda wax ma kala ma hayna wax kale ma hayno wala hor afka uu shub afka ilaaha caafiyo وصلنا من هذا إلى مر صومالي وعليك تجيب تنبو حتى غربة ما اللي جمعنا تجيب صومالي مر لا مصالح صومالي توصل سكتي سلي أبكينا تقدرني تغير ولي المضيق غوانيسا يسلان اللوديدو
لا توصلنا على يهوت المعنبع midabkaadu taanku yaho xidigtii natirinaysaa dhacda kaaga sii taadhe soomaaliyay taasoo isku tiirsaday qofkiina والله بالله تعالى ودكي وكنا سويدنا هذا النميت وكنا قبوبة ندلي لبعض بدن أنا هايستو دمركي بدن وحنا نقدين قربوا بدن أنا نقدين هذا شيء عمرتي وحنا نقدين هاي أبى لبعض بدن أسكجر تورا نادولي مركا أديكو أركو وحنا حسوس رفاضكي dhibkii oo ilmaha inta kala waday ilmaha lama xoolahan socda aagas iskoola u kala wada haya aw xajigin xaajina ma jooga kaas ka qabaha iga wada hooya waa laga wada la hada ma wax u soo ordaysa daagiska geelisa aagas iskooli balaa kala orda hooya abada wa ana wax ka waran ma sha Allah wala inuu fiican baata adiga ilaaha ku garab galo حاجة ونأكسن أو وطن كي يكون على سوماليا وطن كي لا وطن مجر وطن يقول بيلاي ولا يتك على القصيدة هذا ما كسر يبقى تلاصق مع عيشته تذكر وحوم ليان إن أو راعي كجر وحوف يعني إن عددي إيو فمن كذي أنت الله بتو المهلا تقاله قبل يدو أهل المه أنه وهاي سايسو هاي ورا حكي وحكي ايش كل هذا قلنا نادي ما باشا كورس سوق دمنا والله بالله وح ودكي وكوانا رقي وحنا ناخذين كو دراجس استعماله هويوين كيني دمر كيني وكواسا قبله يركا وإبر وح نوهري هبيراتو جرت انيغا مانتا laga bilaabo wadankan waa ka laabana ilmaheegana waa ka wadana waxa u laabana Soomaaliya insha Allah Hejsan, god morgon allihopa. Hej. God morgon. God morgon. Ja, Eva Pettersson. Vem har vi här då? Vad heter du? Ja, du finns med här på min lista. Men varför har du en barnvagn med dig? Du får inte ha barn. Mycket problem. Bebis sjuk. Läkare säger nej. SFI klippar pengar. Kyrkan klippar pengar. Livsslut. Sätt dig längst bak i klassrummet så att du inte stör då. För vi får inte ha barn på lektion. Då går vi vidare idag. Hoppas ni har haft en underbar sommar. Jag tänkte börja med uppropet då. Så det här att vi har en baskul. Barawikul. Barawikul. Är det du det? Ja, Annika är ju stolt om att här. Barawikul. Okej, då går vi vidare. Maxamed. Har vi en Maxamed här? Maxamed? Aniga? Warfiiri. Du är här. محمد ده Maxamed, okej. والنبي ولد الله كوا محمد محمد إسلامك ولد الله محمد Då går vi vidare till دين حب القلب Vadani? Har vi någon här eller? فرح ده فرح فرح كدر ده هذا الفرفور هذا فرح Okej. Telefon kapterar här. هلو هلو ها Man får inte ha دهبشيل باو حصادي بقول Stäng av telefonen. إنك وين أنت لا
رهبل مدفع وين؟ بروبلم لا لا بوليس انا شرعي سوري بوليس شرعي روح إلى قطع بوليس Vi går vidare med lite ord som ni ska repetera. Säg efter mig. Polis. Polis. Post. Vagn, en sån där buss som Dol kom in med tidigare. Fägen. Vagn, precis. Och sen pengar. Pengar. والله بيحسوا pengar horta lacagta waa soo dhacday ya maalida way dhuumataa lacagta marka soo Ayuu tadiya. Men du läser en dikt eller? waa digtiga ma dhegeysa bambi dragi soo dhacay iskeena ku dhahay sheekha horta adiga cimaamada iyo waxa kugu maqan tii macwiisti ahayd iska soo dhiiba ku adigana cambaro waa la gaaray meesha bish waa isnaqaanaya maxaa kale waxa baa qortanayahay Vi behåller en tidig Shakespeare. Då går vi vidare då. Adi horta. Ma fan kan isi shiista ku aadi laha karki waa ilmo ma. Ha. Cunigaas kada ana xasana. ma ii soo celina Wallahi aan cuniga ma tahana inta ku soo buuxi ku nadiifiyo asagoo bash ah ku soo qaad. Dar ma u soo gaday? Ha. Waa isku ognahay. Saas. Min bar waa ka stoorina sa. Sida fuuray. الله قيامة ما فيها آخر أمالي وقبصة ما أشارك بركنا للخيسية بس كنا خمسية لا. Är du tillbaka? Är du frisk eller? في فيها بركة للخيسة ما تكون على قدك تركيا بيت أنا قلت أماني. maamadii oo wasiirka dhakhtaraddan eed oo ya oo haddana ya maasha allah maamadaas horta waran ku haya maamadaas waran ku haya annaga soomaalana ma joojino moogtahay ma joojino macnaha maamada horta meelaa iska soo galnaa maamada طلعنا مركز كده عليها مالاس معناها قرابنا هذا حد واحد عيالكم موقتها دليل مالها كوكرت وحكون عي معناها يا كي تقول تمية قنان ما ماذا قبيل كذا كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم حنا لكن وانس ويدا قبيل كعب معها ما ماذا وحويه سومالي إنجلاند ها قبيل كذا سومالي إنجلاند واي ما حكوا قال لده Somali England أنا كسر Somali Sweden مني معنا حد معنا أضيق وين أنا ده لأنه يوروب Somali يوروب أنا جينا متلس أنا جينا ماشى مركا محلي هذا معنا أنا وحنا هاي Somali يوروب مركل وحنا ذاتك أولاندر مركا يلا نجرب نكون هاي مركزي كوش في بيت الدقل ما لا حبة كده مركا انت سوحي هيك حوغا انا سويدش كوحي لها بريتا إيسا برنامج كان عاو ماشي عن انكو هينو وبرنامج عجائبة لليرانا ودا ايغا انا قابنا ايا odayaasha waxay ka yihiin meesha marti maanta marka waxaan leenahay anagu magaca dhalinyarada ku hadlayna Soomaaliyeed ku soo العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dadweynaha reer Sweden oo aad iyo aad aan u jecelahay علماء الدين كودا dhalinyaradooda dumarkooda يعني reer Sweden yaan kala reebin waxaan idin leeyahay salaamu Allahi calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo intii soo abaabushay xafladan oo aan garan karno waqtiga ay geliyeen iyo dhalinyartii intaba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaa kaloo caawa aniga sharaf weyn ii ah professor Qaliil Bile professor ii ahaa maada gastroenterologiyada ayuu dhigi jiray wuxuuna ahaa diinka faculty of medicine marka caawa aniga inuu meeshaan kasoo qayb galo waxay ii tahay sharaf aan la qiyaasi karin intaanan
gelin wixii aan kusoo talagalay iyo ujeedada socdaalkayga waxaan rabaa inaan ku bilaabo riwaayadii ugu dambeysay 2020 Somali World Cup يعني wax suurtoobi kara ma tahay haddii wax cidla kama imaadaan wax walba waa effortiga la geliyay haddii Soomaali ay u istaagto oy geliso effort waa la helayaa haddaan la gelinina sunnada noloshaba ma aha wax inay iska imaadaan ardayga markii uu wax barto si fiican u daal imtixaanka natiijo fiican u keenaya hadduu seexda natiijo fiican ma keenayo marka waa sunnada nolosha sidii loo shaqeeyo ayay ku xiran tahay riyadaas inay dhabowdo iyo in kale haddaan intaas kaga baxo waxaan rabaa wax yar inaan warbixin idinka siiyo socdaalkayga inkastoo aan isle dadka aad ay u daaleen oonan hadal dheer iyo hadda khudbo dheer maba jeedin kara laanno saacadda leydka ah iyo dadkii caawo dhan halkan fadhiyey annaga Soomaaliya markii naloo magacaabay oo wasaaraddan horumarinta iyo adeegga bulshada la ii magacaabay oo xilka aad u culus micnaheeda ma ahayn qofka ugu fiican ama ugu munaasabsan inaan ahaa waxay noqotay nasiib waan ogahay sababtoo ah 10 wasiir ayaa waxa laga soo bixiyay 10 milyan oo qof marka waxay noqonaysaa halkii wasiir 1 milyan qof waay marka sambalka markaan fiirino manihi qofka ugu fiican manihi qofka ugu habboon laakiin waxay noqotay nasiib mar haddii nasiib ah ay noqotay qof kasta waxaan ka codsanayaa haddii qaladaad aan galo sidii la rabay haddaan wax u qaban waayo in la itoostoosiyo in wax la ii sheego in waa qaadanaya insha Allah wasaaradahan la isku daray markaan fiiriyey waxay noqotay in horta aan sameeyo priority baahida ugu weyn xaggay ka jirtaa qasnada dawladda waxa ku jira ee budgetka inta uu leeyahay xitaa يعني كما حساب تمايا وحي ربان سيدا ugu dhaqsiya badan adeeg degdeg ah inay helaan marka waxaan aad uga fakaray maxaa ugu horeeyay baahidana in aan daraaseeyo sida waxa ugu muhiimsan oo aan isleeyahay aan u qabto Professor Khalifa bila ka dhawaajiyay Soomaaliya caafimaadka maanta meesha ay ka marayso sir qarsoon ma aha waxa aan ka qayb galay shir lagu qabtay Dubai oo isugu imaanayeen dawladaha Emirate la isku dhahay East Mediterranean oo Soomaaliya ay kamid tahay oo waxaana la fiirinayay targetski oo Millennium Development Goals-ka ka 4 iyo 5 oo ku saabsan hooyada inay u dhimato wax uurka iyo dhalmada la xiriira iyo ilmaha yar yar oo ama 5 sano ka yar ama 1 sano ka yar marka adduunka wuxuu degsaday target oo 2015 la iska rabo in la gaaro calool xumatii ugu weyneed waxay ii ahayd presentationkii ugu horeeyay dawladihii waxaa loo kala qaaday 4 dawlada achieve marba gaaray targetkoodii oo dawladan hadda aan joogno Sweden ay kamid tahay xaggana Emro waxaa ku jiro dawladaha khaliijka oo kale way gaareen targetkoodii dawlada gaaray targetkoodii ku jiro waxaa ku jira dawlada meel fiican maray laakiin wali targetka gaarin oo laakiin meel fiican maray oo dhimashadii hooyada aad u dhimay inkastoo wali targetka ayna gaarin waxaa jiray dawlada groupka saddexaad ah oo liita laakiin waa on track yani jihadii la rabay ayay u socdaan progress ayaana jira oo si fiican ah waxaa kamid ah Afghanistan iyo South Sudan Soomaaliya Afghanistan la dhijir hada يعني على الحمد حتى كاس وانا نقول داري واي لأن قانون أفراد وحيد سوماليا أو هيد أوف تراك واحد بروجريس مجر ويمكن أحسن تهيبة جد كي بكوما بتاعنا معناها ود مقر هذا يعني بقول كي كل هوية أو سوماليا إنه يقبح يوحنا معنا لهين وأدون كنتي سكر الوجه دمانه ودينتان وواحد يكون يفر بقول كل شيء بقول هو يعني ما نيسان من تكست سوماليا waxaan adduunka intiisa kale looga geeriyoonay
ayay hooyada soomaaliyeed u geeriyoonaysaa caruurtiyaa ka daran caruurtii yaryaraa adduunka shuban iyo jadeeca iyo pneumonia iyo meel looga dhinto adduunka ma jiraan waxyaabaha qaar tallaal ayaa lagu cirib tiray marka soomaaliyana caruurteedu waxaasay u dhintaan loonj garaynayna waxaan u xarbinaynaa inaan helno pneumococcal vaccinationkii oo ilmahena maadaama ay pneumonia u dhimanayaan marka horta inaan tallaalkii helno oo ilmihiina la tallaalo waa wax aasaasi ah oo ka muhiimsan isbitaal in la dhiso leanna waa inaan horta fahamsannahay wacyiga waa inuu jiraan community ballaaran inaan gaari karan iyo isbitaal sophisticated ah oo cudurada wadnaha oo dad yaryarna ku dhicin dad macnaha 10 qof oo wadnaha laga haayo inaan isbitaal u dhisa aan daaweeyo iyo inaan community ballaaran aan gaaro oo ka hortag iyo aan u sameeyo horta inaan fahamno ahmiyadda ay kala leedahay ruux walba hadda wuxuu weydiinaa isbitaal ma furta waxaan ku leeyahay hadda waxaan ku mashquulsanahay inaan helo igu filan female health workers community health workers inaan dadka gaaro shicibka inaan gaaro taasna waa wadnaa waxyaabaha hadda aan ku tali jirnay ka mid tahay waa traininadii waa socdaan xataa waxaan sameynay tababarka oo loogu magac daray marwada caafimaadka professor Alif Bel dadkii turjumay ka mid ahaayeen taas yaa xoogga aad u saarnay oo ah primary health care dadka horta inay helaan waxyaabaha u baahan yihiin macnaheedana ma isbitaaladii inaan iska dhaafnay isbitaaladii hadda waxa runta ah oo rajada ugu fiican dowladda Turkiga ayaa waxay naga saaciday isbitaalkii Digfer capacity-giisii hore ma aha Digfer gadaashiisu ku yaala 200 sariir way capacity-giisa sanadkan dhexdiisu dhamaanaya insha Allah waana isbitaal u dhigma isbitaalada Turkiga ku yaalo qalab casri ah wax walba qaybna inay noqoto xataa training hospital inuu noqdo oo ardayda takhasusaadka loo bilaabo xataa meesha ay wax ku baran karaan insha Allah isbitaalkaasna sanadkan dhexdiisa ayaan furi doonaa isbitaalkaas waa isbitaal dowladda Turkiga macnaha ma aha private waa public hospitalkaas waa Digfer waxaa kaloo jira isbitaal oo ilaa abriil inaan furi doonaa u malaynayo oo ayagana Turkiga ah ma aha dowladda laakiin Turkiga waxaa ka jira ururo caafimaad oo dowladaba ka xoog badan waa hay'adda SFAD waxay ka mid tahay organizationada oo takhaatiirta ah capacity-giisa ilaa 100 ilaa 150 sariir waaye asagana waa qalab casri wax walba teaching hospitalna qayb uu ka noqonayaa laakiin asaga 100% free ma aha waxaa loogu talagalay dadka aan waxba haysanin oo danyarta ah wasaaradda inay nagu saacidaan ina dhahan 40% 30% annaga macnaha u refer gareynayna dadka 60% 70% dadka lacagta dadka Sweden ka tago Soomaaliya tagay daryeel caafimaad u baahdo oo lacagtooda haysto specialist inay ka heli karaan takhaatiirta specialist inay ka heli karaan qalabkii oo dhan oo yaalo kaasna waa bilowgiisii asaaskii aan dhigna laakiin abriil aan u malayn inuu dhammaan doono sidii macnaha aan ku qiyaasay oo dhinacaasna wax waa ka socdaan waxaa kaloo socda Turkiga waxyaabaha ay noo qabteen lama qiyaasi karo xamar hadda waxa ku taala xarun caafimaad oo weyn aniga waan tagay waan soo kormeeray ilaa 500 oo patient ee maalin kasta ay arkaan caruurtii ku jirto waxay hayaan daawadii waxay hayaan xitaa waxyaabaha oo casriga ah x-ray-ga oo hab digital ah markii raajada qofka la saaro dhakhtar Turkiga jooga soo aqrinayo soo celinay isla markii marka Turkigana wax badan ee caafimaad ka shaqeeya isbitaal caruurta ah kaasna way noo dhisayaan waxaas oo dhan wasaaradda oo lagu taageeray waxaan sameynaa anaga coordination-ka wax ugu fiican markan xamar tagay oo aan shaqadan bilaabay wax kasta way isdhex yaacsan yihiin Turkiyan tagay wasaaradda caafimaadka aan la fariistay safiirka Turkiga aan la fariistay inay coordination jiraan oo waxa macnaha ay noqoto wixii wax wasaaradda ama ha noqdaan qaybtooda private-ka ama ha noqdaan qaybtooda dowladda inay noqoto wax annaga aan coordinate garaynayna inaan ognahay service-kii jira ee meeshuu ka jira sida xataa dadkii aan ugu xawili karno marka waxyaabo badan oo fiican way socdaan laakiin ma aha wax walba wax badan yaa naga dhiman
oo ay ka mid yihiin caruurtan iyo hooyada oo macno la'aanta u dhimanayo oo aan rabno wax weyn inaan ka qaban. waxaan aaminsanahay haddii aan annaga iyadoo xataa qofna waxba na siinin soomaalida naftooda keliya inay samayn karaan qof walba tuuluu ka yimid saraaxatan markaan isu warragno soomaaliya inay burburto lacagaa lagu bixiyay mise bilaashay ku burburtay lacag baa lagu bixiyay soomaaliya inay burburto dadka inay dhintaan dhiigooda daatay lacagaa lagu bixiyey sow dadkii lacagtaas ku bixinaya hadda waa la dhisayaa waa inay lacagtii ku bixiyaan markaan dhismihii waa in lacagta lagu bixiyaa tuulada inaan ka furno meel yar tuulo kasta qof kasta tuuluu ka yimid qof kasta qabiilkiisa waa waray tolbeelay reer hebelaa ishaynaa markuu dhaho isla markii lacagta hubka lagu gadaay 5 daqiiqa lagu diraa hadda waa waray tolbeelay dumarkii dhiigbaxay u dhammaadeen ilmihiina shuban intaa caajisay marka tuulooyinka annaga waxaas xataa ma aha wax aan dad inaan ka barin u baahan in la train garay community health workers $200 mishaar in la siiyo tuuladii gabar yar oo female health worker iyo inay joogaan ka shaqeeyaan waxaas ilmihii shubmaay la siiyo oral rehabilitation saltigi reerkii wacyigelin la siiyo xataa lacag badan kuma baxayso tu ka yar tii lagu burburiyaa ku baxayso wadanka marka waxaan aaminsanahay xataa uma baahnin inaan shisheeye iyo hay-ado inaan lisna xataa ma aha waa bilowna marka caafimaadka wax badanaa nooga socda caawalkan kuma soo koobi karin waxyaabaha ugu fiican health policy-gii Dr. Khalid Bila dadkii gacanta weyn ka geystuu ahaa waa la develop gareeyey strategic planning-ka oo health sector-ka 4 sano soo socota waa la finalize gareeyey kii lagu shaqayn lahaa work plan-kii sanadkan wixii aan rabno inaan qabano waa haysanaa shaqo badanaa ka socoto shaqadaas hadda wax la wada taaban kara ma aha laakiin waxaan u baahannahay qof kasta oo Soomaali ah inuu ka qayb qaato xataa Soomaaliya dhahdaad wax siinaynin tuuladaad ka timid qofow hal gabar inay ka shaqeyso oo badbaadiso hooyaashaas dhiig baxa u dhimanay curriculum-kii oo midwifery-ga waa la develop gareeyey hadda xamar waxaa ka jira iskool oo midwifery oo bilow ah oo ilaa 40 gabdhood ay dhigtaan waxaan rabnaa gobolada oo dhan inaan ka furno iskoolkaas oo midwifery-ga ها وملسوين إن كفرنا سببته جبت قبل كذا مركل لقطة ببرة وملسئة قبل كذا جو قبل حمر لقطة ببرة ما هذه سقبل الله مركل قبل كستمشي إنه كحل إسبيتال يو وملسئة لا تببرة إنه كحل مركل هوله عافماتك وبلارني وحاو أو كسوكوبي كرنا معها سيدا إذين شيء قف وقف في عن ومنصب كان قبتي مي قف استوكلا يقول كردناي tusaale ii sheegay waxyaabo aniga aan ogeyn oo badan jira waxyaabo aan qalqaldaaya jira waxaan diyaar u ahay inaan dhageysto dhinaca waxbarashada haddaan wax yar idinkaga taabto sida professor Khaliif uu ka dhawaajiyey 15% yaa caruura waxbarasho hesha 15%kaas ma aha public education waxbarasho oo lacag la'aan oo dawlad ma aha ودلديه إسكولات كيسميين ويددالين لكن ولي وحبرشة العجة وحبرشة أصل العجة تقف بحين كرنا واتقرن كرتان سومالي دي انت دي بدنا وحابة يستبا وحي عنان ما هيستان علمه من نوتريشن إيه نفق دراك ولا دعده مركا العجة إسكول يكون جيان ما هيان انت عسير ولله الحمد معنا إنه نوع وحبرشة جرتوا كفر أحسنها لكن waxaan rabaa inaan idiin sheego 22 manhaj ka badan yaa Soomaaliya laga dhigaa qof walba qofkii lacagta soo siiyay iyo meeshuu ka keenay manhajkiisu dhigaa waxa ayaan daraa ilmo Soomaali ah oo fasalka koobaad ku jira oo geography-ga Kuwait loo dhigaay ama history-ga Saudi Arabia la baray waxaas waay manaahijta yaala Soomaaliya waa manaahijtaas ma jira national curriculum laano كي كينيا وحكا كيانا تاريخ كينيا ودقايا روحوا بماشي وحكا سو قادي وحيد ودقايا أنا حدا مركي هذا مدة هرت أنا عن حفيزك عن جو أوفيس كان وسدح بلاد لبعتني تودبادي فبراير وحقيق قاضي بقول معلومات مركا وحي واب إنه حنسكو دين سيدا وحكو قبل لهين وزارة ده وحبرشة ده
waa meelaha ugu baaba'san ay ka mid tahay. waxaan sameynay dalladihii inaan isugu yeerno, dalladihii iyo wasaaradda in laysla fariisto, inaan ka bilowno manhajkan sidii wax looga qaban lahaa. discussion badan kadib waxaan idinku bishaaraynayaa in lagu heshiiyey hal manhaj oo Soomaaliya in la sameeyo oo dalladaha iyo wasaaradda iyo ciddii kastoo saacidaysa halkaas manhaj hadda lagu mashquulsanaa sidii loo sameyn lahaa. si September-tan waxaa lagu adkaaday haddaa idinkaga sheekeeya qofka inaad fahamsiisid. qaar gobollo ka yimid wuxuu ku raacay gobolkayga manhajkaasaan rabaa inaan ka dhigo. qaar waan barinay. Sheekh Sharaf waxyaabahaas ee dhacayaan xaadir uu ahaa meelaha qaarkood asaga qanciyo oo u muxaadaray dadkii ku dhaganaa manhaj. qof kasta anaa manhaj dhigay ku dhahay war ilmahan Soomaaliyeed mustaqbalkiisa iyo aayatiinkiisa qabkeena aan xagga iska dhignay anaa gobolkaas ka yimid ilmahan dartiisa mu midoobi karnaa. alxamdulillah waa ku guulaysanay in ilmaha dartiisa loo midoobo. marka manhaj midaysan iyo shahaado midaysan iyo imtixaan midaysan September-tan insha Allah iskoolaadka Soomaaliya waxaa lagu dhigi doonaa manhajkaas midaysan. suugaantu wax badan bay ka hadashay oo ogtahay dhibaatooyinkii dhacay oo xaaladda joogto ba haddana la saan qaadaa raaligelin haween idinkaa dareemi doona kulle intaan ka waxaan kaga hadlayo raayi gabay baryahan waa anigaan tiri rashiidow raandhiiska erayadii lahaa reebay oo nacay raasamaal hadduu leeyahay iyo ribix wax goynaya mansab la isku raaciya haddii raaxo laga dheefi nimankii murtida ruugi jiray baa raayo heli lahaa waxa maanta igu soo ridaya soo rogaal celiyey cadaaladdan la kala reebayaan dumar u roonaanin ee raaligelin iyo sadburis inaan rag uun siisay dulmigaa ragaajiya hablaha raadka ku askeeyey haweenkiina laga reebay baan raaligelin. afartaa war lama raamsado ee ruuga ma waasay raagay iyo qamaan iyo sidii rooble ma u sheegay raamaala aariya sidii goosha ma u reebay ma u raxleeya sidii roob gudda ay ramashidii qayrta niman baa murtida raajiyo oo ruuga oo dila ee ma u ratibay sida iga rabeen raaxa iyo qaale alla ilahay halkii aan la rabay rawma kaga siiyey ragow xaal muddaba raagay iyo rafaad jooga waxaan doonayaa inaan hablaha raaligeliya. rajo iyo agoonnimo mid ay baahi ku raagtay mid yaraan ku raxan raaday oo weli rafaadaysa mid aqoontii laga reebay oo reerka u adeegta mid arooskii laga raacay oo aan rugucan haysan iyadoo aan rabin tii la furaya carmali raagtay weligeed midaan raaxo arag oo rays bacaga saarin isku soo rog oo dumar wixii laga sudroonaaday waxaan doonayaa inaan hablaha raaligeliya. raashinkii ay kariyeen waxay raran gubiyoodaanba ka soo roga raggaa inaga darane raarta wada geeya lafihii kuwii ruugay ee aan waxbaba reegin raggii gaajadaa idinku riday hablow raalli ka ahaada. raadsan baa rugtii laga baxshay oo raaskii laga saaray raaliyaha weyn bay ahayd dhaqasho reeraade run ay sheegtay baa lagu nacay oo rubadda loo gooyay dalqadiina loo raacshay oo maalkii laga reebtay. raxma wuxuu rashiidkii ku dilay raashin yara daahay 6 da-ood ruqyo oo dhashay baa reerkii laga saaray riyo dacawo soo weerartay baa raaxa lagu waayay ra'yigayga aan dhiibto bay ina rashiid eedda idinku reerka jooga oo hablow raashinkuu kariya aqoontana ka reebnaada oo raaska u adeega ra'yigaa kuwii keenayow raalligeliniiba. rafiiqaad lahayd ee yaraan caashaq kugu raacshay ee reer inaad wada dhistaan raalli ku ahaaday adigoo run wada oo facaa dooni inaad raacdo oday wada ribiishoobay oday reero hore soo dhistay oo wada ribiishoobay rubad kii ku dhaafsaday ee duqaa raaska ku geliya rafaadkuu ku baday aabbahaa raalli noqo baay. biweynaha la cuskadaa iyo rasuulkiiyo jacaylkaa ribaday iyo dhibkaa
raalli noqobaayo raaxa uma ladaan jiifka oo way raran gubyoodaane xanaanada mid kula roor mid kale raashin u diyaari reexaan carfooniya reexaan udgooniya carfoon reerku ha ahaado duquyaanu raagina qadada reeri uga sii dhig rabayntii carruurtaa u dheer iyo ruclayntiiya waxaasoo rafaaday haween raalli ku yihiine dharaar qudha ragoo weydinkaa raashin karinay dumarow rafaad waxaad marteen raalli ka ahaada rajaliida hoylaydi baday raalli ka ahaada aqaladii madfaca loo rukumay raalli ka ahaada miinadii waddada lagu rikibay raalli ka ahaada rucrucdiiyo qaxiyo barakacii raalli ka ahaada ruxankiiyo jabkiiyo socotadii raalli ka ahaada roobkii cidlada idinka helay raalli ka ahaada waraabihii ilmaha raamsaday ee ruugay hilibkooda raasliida hoylaydin baday raalli ka ahaada raggii aad jeclaydeen raggii gooyay rubadooda ee reer la-aanta idin badayna raalli ka ahaadeen wax kasta oo rafaada oo rag dhigay hablow raalli ka ahaada rabbiga weyn ee raxmaanka ah dartii raalli ku ahaada raxmaddaa fogaatay ee dhulkeennii roobba lagu waayay abaaraha rag baa sababay oo riiqay aadmiga ee raayada adduun nabadu wow raasamaal adage intay ani la wada roorayaan keligay aan reeyo ama reerka yagu reerka kale ribix ha dheeraado oo raaska yagu raaska kale rubuc ha dheeraado dhalanteed ruwaayada intii la isku raacayo ra'yigaasi waa mid aan weligii aan ru noqonayn rabbigeen ha dhaafee abaal raaga dumar baale raaxada adduuniya ramashiraysba dumar baale nolol lagu riyoodiyo wanaag runa haween baale raas lagu nagaadiyo rug wacan raaxa dumar baale aqal raar dugsoon oo rasmi ah raaya dumar baale aroos loo raxleeyiya ciyaar raaya dumar baale rajadeenna oo idili waa raalliya haweene haddaanay reerka noo joogin dumar raaska iyo qoyska rafaad kama baxneen baahi iyo gaajo raxanraa waan filayaa daawadayaal inaad si aada uga hesheen xafladii ballaarneed ee lagu soo dhaweynayay wasiiradda horumarinta deegaanka iyo arrimaha bulshada doctoresa maryan qaasin oo iyadu dhacday si qurux badan daawadayaal guud ahaan toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeeni Women Somali TV oo aanu filayna si aad uga hesheen daawadayaal tan iyo intayna toddobaadka dambe haddii Allah wadali uu ogolaado xilligan oo kale aynu hawada ku kulmi doono waa bahda Women Somali TV oo idin leh sida iyo ismaqal aragti dambe oo xiiso